markii ugu horeysay aan mastercard ka qaatay meeshan IBS ayaa ka qaatay marka waxaan isla kulay waxaan ma shaqayn doonaa bal wax kale jeebka ku sii qaado oo isku maaleyn kartid ayaan isla markaan meel kale tagay baan Cabdirasaaq la soo hadlay wixii waa shaqeeyeen waa fiicantii runtii dhiiranaantaas geesinimadaas ayaa halkan lagu soo gaaray waan idin bogaadinaynaa waxaan aaminsanahay meel sarana inaad gaari doontaan intaa waxaa sii dheer IBS inay saaxiib la tahay waxbarashada waxaan ka qayb galay barnaamijyo waaweyn oo waxbarashadu ay leedahay qaarkood waa daabacidda buugaagta qaarkood waa jaamacado la dhisay waa dugsiyo la dhisay oo intaaba lagu sameeyay kharash aanan ribix ku jirin oo ay bixisay IBS ay bixisay si gaar ah ugu mahadceliyo IBS oo ah shirkad mar walba garab taagan wasaaradda arrimaha dibadda iyo barnaamijkan East Africa fahamtayna inaan nahay adeegayaal u adeega shirkadaha private-ka dhaqaalaha waddankeena wuxuu ku saleysan yahay dhaqaalaha gaarka ay dadku gaarka ay leeyihiin marka dawladdu haddii goor waxay u taagan tahay in ay dadkaas dhaqaalaha iska leh inay u sahasho adeegyadooda iyo howlaha ay qabtaan marka in mar walba ay mataana yihiin oo ay dawladda hay'adaha dawladda iyo shirkadaha private-ka ay xiriir dhow leeyihiin waa wax aad iyo aad muhiim ah waana waxa uu fahmay Cabdirasaaq iyo IBS ay fahmeen waan ugu hambalyeynaya IBS iyo labada wasaaradood oo labada karbood ka joogta caawada inay ku qiimeeyaan oo u qalantaan idinka iyo saaxiibada naga maqanba annana waxaan matalaynaa dawladda inteedii kale oo dhan iyo private sector-kii oo dhan marka koofi waxay ugu jirtaa caawil idin geliya aad u ballaaran aad u weyn xil weyn baa noo haysaan in badan aan iska warhayn doonaa oo maxaa la yiraahdaa iska warqabi doonaa kaliya caawida ku soo gootimayna idinka hareenamayne in badan baa wada xiriiri doonaa golayaal badan baa isugu imaan doonaa sidii aad nagala shaqayn lahaydeen in saameynteenu si rasmi u gaarto meelahaasna waa ka wada xiriiri doonaa